اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. suuradda waxaa la suuratu masad. masad waxaa la yidhaha xariga ayaa la yidhaha laga sameeya geedka timirta ah dufteeda xariga laga sameeya la yidhahdaa. marka waana waxaa ku soo arooray suuradda aakhirkeeda masada ku soo arooray xarigaas. waxay ku soo degtay sabab nusuulkeeda waqtigii dacwadu ay aadka u adkayd oo nabiga diinta uu dadka u bandhigayay ayuu nabiga calayhi salaatu wasalaam maalmaha ka mid ah ayuu isugu yeeray quraysh oo dhan. buurtuu fuulay jabal maka ku yaal ayuu fuulay. markaas wuxuu yidhi dadkii oo dhan buu isugu yeeray. dadkii oo dhan ayuu isugu yeeray. erey ay isu yaqaanaan oo baaqaho dadku dhan isoo kulmaan ayuu nabiga u dhawaaqay calayhi salaatu wasalaam. buurtii markuu dadkii dhan soo tuurteen waa yeelkii ciroolihii yacni kii yaraa kii weynaa waxaana aysan jirin ay meesha yimid ayuu markaa nabiga la hadla wuxuu ku yidhi haddaan idinku iraahdo buurtan gadaasheeda cadow baa duulaan soo ah oo idinku soo socdo oo raba inuu idin weeraro oo idin baabi'iyo ma i rumayn lahaydeen? waxay ku yidhaahdeen haa waa ku rumayn lahayn. maa jarabnaa calayka kadiban wax been ah oo aan kugu ognahay ama aan kugu soo ogaanay weligeen 40 sanaad jirtaa aan kugu ogn maa jarabnaa hal been aan kugu ognaa ma jirto waa ku rumaysanayna. markaas wuxuu ku yidhi inii nadiirun lakum bayna yaday cadaabin shadiid. waxaan idinkaga digayaa cadaab idinka horeeya ayaan idinkaga digayaa. haddaa gaalnimadan iyo shirkigan ku sii socotaan cadaabka idinka horeeyaan idinkaga digaa ayuu ku yidhi. saas markii uu hadalka nabiga yidhi oo hadalkii ka dhacay nabiga calayhi salaatu wasalaam si ku yidhi ayuu waxay yidhaahdeen waxaa hadlay adeerkiis abulahab oo aabihii la dhashay. wuxuu aan oday oo magac leh oo maalqabeen ah oo rag dhalay fara badan wuxuu ahaa aad iyo aad loo yaqaan. markaas wuxuu ku yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam tabban laka alihaada jamactana. tabban laka halaag ayaa kuu sugnaaday allaha ku halaagee ma waxaana dadka isugu yeertay oo noo kulmisay. fanazla tabat yada abi waxaa soo degay suuraddaana ilaahay soo dejiyey subxaana wa tacaala. bismi illaahi araxmaan araxiim. tabad waxaa halaagsamay yada abi lahabin. abi lahab labadiisa gacmood ayaa halaagsamay. wa tabba waana halaagsamay. waa lagu celiyey mar labaad. tabat waxaa halaagsantay ama ha halaagsanto waqay halaagsanto. waxaa loo jeeda alla ha halaagaba ilaahay ha halaago. tabat alla ha halaaga yada abi lahabin. abi lahab labadiisa gacmood. labada gacmood hadda looma jeeda waxaa loo jeeda isagoo dhan. waxaa la yidhaha min cibaarat min tacbiir اljuzi wa iraadat اlkuli. yani juz yaraa la magacaaba gacantii ayaa la sheega lakin waxaa loo jeedaa qofka o dhana loo jeedaa. wa taba waana halaagsamay. wa taba waana halaagsamay. ilaahay halaaga haddii la yiri wuuba halaagsamayba halaag uma dhina. wa taba waa halaagsamay. maa agnaa ma deeqin canhu isaga xaggiisa maaluhu maalkiisii hantidiisii waxba uma tarin. wamaa kasaba iyo wixii uu kasbaday oo caruur uu dhalay waxba uma aanay tarin. sayaslaa wuxuu geli doonaa naaran naar ayuu geli doonaa. naartaasoo daata lahabin holacu saaxiib ah. naar holcayso ayuu geli doonaa. wamra'atuhu haweentiisiina way gelaysaa iyadana waxay gelaysaa iyadana naartay gelaysaa. sataslaa naaran daata lahab. wamra'atuhu haweentiisina way gelaysaa.
xamaalat alxatabi qoryo qaadista badnayd fii jiidihaa qoorteeda waxaa ku jiro xablun xarig oo min masadin masad ka samaysan xarig masad ka samaysan ayaa ku jiro. ilaahay subxaana wa tacaala suuradda waxaa ilaahay kaga hadlaya nebiga colaadda ninka u qaaday oo adeerkiis ah. adeerkii wuu daba socon jiraa la yidhi, wuxuu dhihi jiray aniga adeerkiisa oo aabihii la dhashay, ha maqlina ninkan waa beenlow iska jira, saasuu u daba socon jiray. nin cadow holac uu ahaa cad oo maaragtay aada u qurux badan, yani waxaa la dhihi jiray cabdulcuza ayaa la dhihi jiray, cabdulcuza ayaa la dhihi jiray. marka wuu la dagaalamay nabiga caleyh isalaatu wassalaam. qofkii dadka kugu dhowaa hadduu kula dagaalamana waa wareer. xaaskiisa waxaa la dhihi jiray umu jamiil binti xarb, abi sufyaan ay la dhalatay. abi sufyaan walaashiis bani umaya ayay la dhalatay. abi sufyaan reer magac leh ay ka dhalatay. qoftaasuu xaaskiisa ahayd. iyadana dagaalkay kala qeyb gashay iyo colaadda nebiga caleyh isalaatu wassalaam. waxaa la yidhi qodaxaha ayay soo qaadi jirtay iyo laamaha qoyan iyo laamaha geedaha. habeenkii waxay dhigi jirtay jidka nebiga si subaxdii asoo ujeedin ugu istaago ayay maaragtay. waa nacayb meeshii u dambeeyey, yani waa colaad yani iyagoo darisna way ahaayeen. marka nebiga caleyh isalaatu wassalaam ilaahay baa difaacay oo uga aarguday. abulahab waxaa la yidhi wuu halaagsamay. cuduraa ku dhacay markii u dambeysay, cudur aada u faafa, cudurada faafa ka mid ah. markuu dhimanayeyna waa laga kala cararay. wiilashiisii xataa waa duugi kari waaye. haddayna ka cabsooneynin ceeb iyo fadeexad haddaysan ka cabsooneynin, waxaa la yidhi uma duugi lahaynba, xitaa banaanuu ku dhiman lahaa. marka qoryo dhaadheeray qaatay, markii dambe goday qodeen. markaasaa qoryihii dheeraara lagu riday ninkii magaca lahaa, odayga ahaa, oo wiilasha dhalay, oo ragga dhalay. ilaahayna saasuu u duleeyaa qofka nebiga la dagaalama caleyh isalaatu wassalaam ama diintiisa la dagaalama. tabad waxaa halaagsantay yadda abilahabin, abilahab labadiisa gacmood ayaa halaagsamay oo khasaaray. wa taba waana halaagsamay. qad waqaca maa dacaa bihi calayhi, wixii lagu habaaray waa ku dhaceen. maa agnaa waxba uma tarin canhu abilahab xaggiisa maaluhu, maalkiisii hantidii uu lahaa iyo khinaagii ilaahay uu siiyey waxba uma tarin. wamaa kasaba iyo kasabkiisii, kasabka waxaa loo jeedaa caruurtiisii iyo raggii uu dhalay, yani iyo ribixii uu kasbaday. yani ilahay cadaabkiisa hadduu kugu soo dego subxana wa tacala waxa kaa celin karaa male. ilmo kuma difaacayaan, maalna kuma difaacayo. ilahi hadduu kugu soo jeesto subxana wa tacaala. sayaslaa wuxuu geli doonaa naara, naar ayuu geli doonaa daata lahabin, holac u saaxiib ah. naarta holcayso ayaa lagu ridayaa oo magaciisa waafaqsan. abulahab waxaa loo yidhi casaanta iyo balbalcadu ahaa. marka naarta uu galayana waa naar balbalcada iyadana oo holcaysa. wamraatu haweentiisina satasla way geli doontaa iyadana. xamaalat alxatabi, haweentii xamaalat alxatabi qoryo qaadista badnayd iyadana waxay gelaysaa iyadana oo qashinka iyo qodxaa ay nebiga ku daadin jirtay jidkiisa caleyh isalaatu wassalaam. waxaa ku way isku dir badnayd oo dadkii ku diri jirtay nebiga caleyh isalaatu wassalaam. oo qofka dadka dabka ku dir waa qof xaabashid ah oo dabka shida oo dab xulcis badan oo dadka maaragtay ku shida. yani qofkaasaa la yidhahda asna waa qoryo qaadis badan yahay. taasna waa loola jeedaa. fii jiidihaa qoorteeda waxaa ahaaday xablun xarig oo min masadin, masad aliifka ah. yani xariga ayaa ayaa qoorta ugu jiray. kaasa maaragtay xarig qoorta ku wata. ama qoryaha markay soo qaadayso ayay xarigkaas ku soo qaadaa. waa lagu ceebeyna inay soo qaado xarig qoorta kusoo xirato oo qashin iyo qodxo ay soo qaado nebigu ku daadaysa haddana hortiisa. waa wax liita oo aada u foolxun. marka waxaa kaloo la yiri xarig waxaa ku jira masad ah oo xarkaha naarta ah ayaa ilaahay qoorta u gelinaya subxaana wa tacaala. oo naarta waxaa lagu cadaabaa xarigaas.
waxay tiri ku dhaarataa la yiri waxay tiri wallaata walcuzza laata iyo cuzaan ku dhaarte la unfiqannaha fi cadaawati muxamadin yani dahabkeedii iyo waxay lahayd qalin lahayd oo dhanay waxay tiri ilaah baan ku dhaartay haddaanan ku bixinin colaada muxamed haddaanan ku bixinin ilaah laata iyo cuzaan ku dhaartay bay tiri ilaahay marka wuxuu ku jazeeyey in maalinta qiyaame xarig qoorta loo geliyo oo ilaahay saa ku halaaga subxaana wa tacaala iyadii ninkeedii waa khasaareen qoyskaas dhan waa halaagsamay waa baaba'een ilaahay baana halaajiyey subxaana wa tacaala